Jamciyadda Sera Group ayaa habeenkii xalay ahaa tobabarkii labaad u soo xidhay 16 maalin oo ka kala socday gobollada Sool iyo Sanaag, kuwaas oo qaatay tobabar la xidhiidha culuumta ay dhigi doonaan iyo qaabka ay u tabin doonaan. Waxaana munaasabad ku aadanayd xidhitaanka tobabarkaas oo maalmo u socday macallimiinta lagu qabtay magaalada Hargeysa. Waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ugu horreeyay wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland, badi culimo awdiin ka kala socday gobollada dalka, aqoon-yahan madax dhaqameed, macallimiinta tobabarka qaatay iyo sidoo kale mas'uuliyiinta iyo madaxda Sera Group. Waxaana ugu horreyn madasha ka hadlay gudoomiyaha Sera Group ee Somaliland Sheekh Aadan Ibraahin iyo xogayaha jamciyaddaasi Cabdifataax Awil, kuwaas oo faahfaahin ka bixiyay shaqooyinka ay qabato jamciyadda Sera Group, sida ay u shaqeyso, inta waddan ay ka shaqeyso, dadaalada ay ilaa hadda bixiyeen, baaxadda ay leeyihiin, iyo marxaladihii uu soo maray tobabarkani la siiyey macallimiinta iyo waxyaabihii lagu tababaray. waxay gacanta ku haysaa macallimiin gaadhaysa oo ardayda wax u dhigta 18 macallin. waxay macallimiintaasi ka shaqeeyaan deegaanadii aan hore u sheegay, afarta degme waaweyn: Ceel Afweyn, Darweyne, Bohol, Oog iyo deegaanada hoos yimaada oo ka tirsan labada gobol ee Sool iyo Sanaag. waxa macallimiintaasi ay wax ku dhigaan oo ardayda ugu dhigaan si bilaash ah, oo ururka ama jamciyadda Sera Group ayaa ballan qaaday mushaharka macallinka inuu helo bisha kowdeeda, waxaana iska kaashada ururka ama jamciyadda si ay macallimiintu mushaharka u heli lahaayeen. ururkaasi wuxuu ka jiraa dalkeena Somaliland, Ingiriiska, Mareykanka iyo maxay ahaydey dhammaan dalalka waxa weeyaan ay Soomaalidu ku nool yihiin ee kala duwan ayay waxa weeyaan dhammaantood ka soo jeedaan bahda jamciyadda Sera Group. allaha barakeeyo. halkan waynu uga ducaynaynaa. waxaan ka ballan qaadaynaa in Sera Group ahaan sii wadi doono taageerada iskuulada insha Allah iyo madaariska, idinkana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idinku anfaco cilmiga barateen. Intaasi kadib waxaa iyaguna madasha ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay, kuwaasoo iskugu jiray macallimiintii tobabarka qaatay, xubno ka mid ah macallimiintii bixinayay tobabarka, culimo awdiin kala duwan, aqoon-yahan madax dhaqameed iyo mas'uuliyiin kale. dhammaan waxaan kula dardaarmayaa macallimiintii in ay tadbiiqiyaan duruustii ay qaateen dhammaantoodba, oo markay ku noqdaan meeshii wax laga dhigayay ay ka muuqato oo ay maxayday la arko in aad wax soo kordhisay. qodobka koobaad oo ah maadada aan gudbiyey runtii waxa ciwaankeedu ay huwaneyd oo ahaa طرائف من سير الصحابة والصالحين. dabcan siyarkii salafkana waxa laga qaadanayo si kooban waxa ugu muhiimsan akhlaaq cadiima ah oo weyn. akhlaaqduna runtii waxay koobsataa macruuf iyo wanaag oo dhan dhammaantii bay koobsataa. waxaan mahadnaqayaa jamciyadda Sera barnaamijkan inoo soo qaban qaabisay, xubnaheeda iyo gudaha iyo dibadba isku kaashaday khayrkan. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan u baryaynaa cid kastoo ka qayb qaadatay barnaamijkan inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wixii ay gashadeen wax khayr badan ugu bedelo, Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxay haystaan ugu barakeeyo. waxaa muhiim ah macallimka magaalada joogaa inuu dhammaan dadka uu la degan yahay uu isku dayo inuu waxyiga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nin walba inta awoodiisa u gaarsiiyo. hays yaraysanin macallinka miyiga joogo. Afrika iyo Asia way tagi doonaan. carruurta ay reed gacanta ku hayso aad wax u dhigayso. macallimiinteena markaan quraanka dhigayno waxaan u baahanahay inaan barano ardayda waxaan u dhigano sidii laga soo dhawaajiyay, gaar ahaan al-furuuq al-fardiyya waxa la yiraahdo. furuuq al-fardiyya waa ardaydu iska mid maaha ee furuuqda u dhaxaysan la garto, waa arrin muhiim ah. waxaan leeyahay hadhimanina idinkoo dhaxal reebi kara, idinkoo dhaxal ka tagi kara. hadhimanina dhaxal laga tagana waxaa ugu qaalisan dhaxalka diinta iyo cilmiga. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dhammaanteenba dembigeena dhaafo, khayrka iyo wanaagga cid kastoo samaynaysa alle ka abaalmariyo. macallimiinta halkan joogta muxuu ahaayay waxaan leeyahay
horta waxaad wadaan arrin aad iyo aad u muhiim ah oo qaali ah waayo awlaadeennii baynu tarbiyadaynaynaa ku samra baan leeyahay iyaga kelmaddaasaan leeyahay waxyaabo badan baa idinkaga imanaya maanta waxaa haysataan ruqsad aanan ugu haysan iyo kayla mida iyo kaga sii liitatoon waayo waxaa ka shaqaynaysaan kitaabkii ilaahay iyo kalaamkii ilaahay waxaa haysataan fursad aad iyo aad u qaaliya waxaa beeranaysaan beertii ugu qaalisanay taa dib ugu noqon maayo oo ah dad diinta islaamka lagu tarbiyaday la barayo samirkeeda sadkeeda waa helaysaan samirkeeda yeesha waxaan u malaynayaa waano iyo cilmi intii laydin sheegi lahaaba waa laydin sheegay qoladeedan aan cilmiga lahayn ee gabowday wuxuun baa noo furan oo waxa noo furan camalka aad haysaan in ilaahay idin siyaadiyo miisaanka xasanaadkana idin saaro waqtigeeda ayaanu ilaahay idinka baryaynaa waxay qaateen iyo mawaadkay qaateen ee seera group u diyaarisayna waa inoo diyaarsatay waqtigeena u xidhiidha ilaahay waxaynu uga baryaynaa in macallimiintaasi waxay qaateen alla ku anfaco raggii barayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar iyo xasanaad ka siiyo macallimiinta iyo macallimiintooda iyo waayeelka intaba waxaynu dardaarmaynaa iyo innaguba ilaahay cabsidiisa ilaahay laga cabsado waa shay muhiim ah qaybihii dambe ee munaasabadda ayaa waxaa hadallada soo afmeeray wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Albani kaasoo ku nuxnuxsaday muhiimadda uu leeyahay tababarkani dardaaran u soo jeediyay macallimiintii tababarka qaatay isagoo geesta kale mahadcelin u soo jeediyay mas'uuliyiinta Sera Group iyo macallimiinta Qur'aanka Kariimka ah ka dhiga deegaanada la sheegay ee halkan uu Sheekh Aadan ka cadeeyay runtu waxay tahay oo aynaan isku diidanayn ruuxa macallinka ah ee dhigaya Qur'aanka Kariimka ah iyo culumta shareecadu wuxuu ka fadli badan yahay oo ka sareeyaa dhammaan culumta kale oo dhan cidda dhigaysa taana waxaynu iska nidhi ma aha waa wax nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam kama fi sahih al-Bukhari daba macallinka maanta quraanka dhigaya iyo macallimiinta kale ee shareecada inteeda kala dhigaysa waxa laga doonayaa in uu noqdo qofka wax dhigaya qof muxtasib ah oo ajri ku doonaya iyo thawaab iyo abaal xagga alle kaga doonaya yarju raxmata rabbi naxariista rabbi ku rajaynaya ballanqaadka alle subxaanahu wa tacaala uu ballan qaaday in uu ka abaalin doono qof ku rajaynaya waa inuu noqdaa ugu dambeyntii munaasabadda ayaa waxaa shahaadooyin heerkoodu sarreeya oo ka diiwaan gashan xukuumadda Somaliland lagu guddoonsiiyey goobta macallimiintii tababarka qaatay iyagoo dhankooda mas'uuliyiinta Sera Groupna la guddoonsiiyey shahaado sharafiyo kala duwan oo ku saabsanaa dadaalada ay bixiyeen